السلام عليكم ورحمة الله والبركاته وافينكي دادكا وحويان انت قلبك في علي انت قلبك ولاكسدي انت قلبك aan hee waa bilo oo dhex joogo gurigiisa way idiga soo salaamay xagga ay Talyaaniga gaar ahaan magaalada Palermo gobolka Sicilia aad bay idin salaamaya waxaan wadaa barnaamij Soomaaliya sideen isku jeclaana Soomaaliyay sideen isku jeclaana baan wadaa aawa waa su'aal qof kasta waxa weyn u taala aniga wala iga aqoon badan yahay wala iga cilmi badan yahay wala iga maskax weyn yahay haddana waxaan jecelahay in aan intii ila gudboon aan ka hadlo Soomaaliyay sideen isku jeclaana waa su'aal siiba Soomaalida qurbaha isku timid sideen isku jeclaana awal dadku waxay dhihi jireen قبيل باجرو قفل بقبيل كيسو جعلي قالوا بقبيل كيسو جعلين جاوا يسوع دماتي وحاس قبيلات كاوي اسكو سورتي سيده قبيلات كاوي سنعيبه جاوا يسوع دماتي وشيكدي Soomaaliyay hawshu meel xun bay maraysaa sayni isku jeclaana salahan meesha ka xuntaan ka bilaa Talyaaniga ka bilaabaya Soomaalida Talyaaniga ku nool Talyaaniga waxa imaadeen iyagoo safara way awoodi karaan iyagoo waxa weeyaan iyagoo isjecel inay meelo waaweyn karaystaan oo de meesha walo Talyaaniga tusaale laga maarmayo meel la soo noqonayo dadku akthar kooga dadka ugu badan European ku nool meelaha jooga akthar kooga meelaha oo meesha ugu badan wadanka kaliya ay ugu badina sharci ay ku leeyihiin mid ka maarmay ma sheegin laakiin inta ugu faraha badan tusaale ahaan sayna isku jeclaanayno kale imanka dad baa ku nool bartan ku noolnahay Talyaaniga Bangladesh oo kale tusaale ahaan waa dadka ugu shaqada badan la Talyaaniga مثلا guri bay karaysanayaan gurigaas waxay ka dhigayaan qayb waa isla iyaga qayb ay ku shiraan qayb ay waxa weeyaan NGO ku qabsadaan qayb waxa weeyaan waxa weey cunto ku samaysanayo guriga kale karaysanayaan iyagii baa iska sii karaynaya way isjecel yihiin kale aragtay hadda tiraada guriga kale no ku dhaay waxaan anagu una family dad family kaliya taanahay no ma dhaxgali kartid Soomaalida dadkaas laga laayay Soomaalida Talyaaniga ku nool waxa laga laayay waa intaas ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax yar isugu hagaajiyo qol yar siiyo qofkii uu imaado wuxuu ka qaadayaa 250 euro ka qaadayaa ku wax yar oo asaxaana u qabto wuxuu ka qaadayaa waxa weeyaan lacag uu ka qaadayaa ku habeen seexiyo wuxuu ka qaadayaa lacag bismillah in kasta dadku isku mid ahayn dad waxa jira ayna aksarka ugu badnay laakiin sida Talyaaniga u badan baan ka hadlaynaa marka waxaan rabnaa inaynu bedelno dadka gaar ahaan qurbaha ku nool gaar ahaan Talyaaniga ku nool inaynu isjeclaano oo inuu waxyaalo badan wax badan ka bedelno tusaale ahaan inaynu waxa weeyaan horta dhinaca waxa weeyaan guryaha aynu waxa weeyaan qani ka noqono because qof walba dhinacan Faransiisku ka dhiibay yahay mid baa German ka dhiibay mid baa dhinacan loo jooga mid baa dhinacan loo jooga dad aksarkiinu waxanaay waxa weeyaan dad durdura laakiin imika ma sha Allah waa tan Talyaaniga waxa weey nimcadu ka dilaaday waxaan u maleynayaa in wax badan noo hirgeliyo oo dadku ma sha Allah qaar badan liisankii ay baranayaan aniga laftayga ku aniyaan qaadanaya liisanka alxamdulillah rabbil alamin markii hore waddanka iska diro walbaan iska laakiin markii hore maan jeclaan jirin inaan anigu Yurub gaariyo waxa ku haysto qof walba hubbi buu leeyahay ma garatay laakiin hadda alxamdulillah danta ay u kaliftay oo tii waxa weeyaan iska yar ma garatay baaskilada ay taashito inaan iska yar haysto taas dadka Talyaaniga taas aniga leeyahay idinka dhinaca iska xanaq jira dad yawo kale qurbaha ku nool waxaan leeyahay inaynu isjeclaano waa muhiim mid baynu horta isku jecelno qof walba wuxuu jecel yahay meel ay Soomaali ka dhowdahay haddana taas ku tusinaysa inaynu family kaliya tanahay haddii imika meel cillaa joogto waxa dhaysa tuulo waxaan joogaa bilaa Soomaaliya anigu Soomaali ma haysto Soomaali lama joogto laakiin wad jeceshahay marka ay ka maqayiin
markaad dhex tagtaa laga yaabaa dadkii aad dhex degtay inaad shida ku noqoto, inaad dabshid ku noqoto, inaad dabshida ku noqoto, inaad kaba dhammaan weydo reerkii ku soo dhaweeyeyba adaba reerkii ku keenay magaalada, waa reerkii guriga kuu dhisay, waa reerkii ku dhisay. haddaad naag ahayd xitaa nin kugu daray, haddaad nin ahayd dad naag kugu daray, dadkii ku qorqoray, ku qiimeeyey, ku qadariyey inaad caqabad ku noqotaa laga yaaba. markaasaynu isku jeclaanaynaa waxa weeyaan inaad marka hore xiisaynayso Soomaali, markaad la joogtay inaad xiisayso raba intaas kale isku jeclaan karna. dunidu way isku dhacaan, dad kasta way isku dhacaan, laakiin sidaynu isku talax tagno oo aynu leerkii biyaha u kala qaadano ma kala qaataan. waayo ummad keliya tan one family baan haddaynu Soomaalina, dad isku afaynu nahay, dad isku dhaqanaynu nahay, dad isku midabaynu nahay, dad isku timaynu nahay. meel aynu u kala soconnaa ma jirto. dad meel wada degan baan nahay, dad waxa weeyaan israacooga iyo meesha ka yimaadeen la garanayaan nahay, dad waxaan nahay dadka dhex gala. imika waad arkaysaa Yurubtii adduunkii wuu inaga yaabayeyba. Maraykankii waad arkaysaa ina yaraynu dhalnayba waxa weeyaan ka yaabisa. waad arkaysaan waxa weeyaan maamulka qaramada midoobay waxa weeyaan ku xigeenkeygii inaynu waxa weeyaan imika Soomaali meelo badan xidhibaano adduunkii saasaynu ugu faafnay. adduunku waa soo jeesaday imika, waa baqayaan, waxay isleeyihiin siday bilay dabshid ka bilaaban dunida, ila waddagoogii bay dabshid ka dhigeen. laakiin iyagu ma oga inaynu u fiicannahay dadka ajnabiga, iyagu kuma oga. laakiin Soomaalidu qofka ajnabiga uu fiicay si daacad ugu shaqeynaya, dalka ajnabigana uu hagar baxaya, laakiin dalkiisa no. waayo inankii baan isjeclayn, inankii baan isla ficiltamayna. taa waxay ku tusanaysaa haddaynu meel isugu imano oo tusaale ahaan qof waxa weeyaan Soomaali maanta meherad furto, isagii baynu ka dhex bilaabaynaa, waynu ka jijibinaynaa, amba isagii baynu ximinaynaa. maanta oo dhan waxaynu ka sheekeynaa waxa weeye war waxaa u tegina, war waxaa hormarina, war dhinacaa marina, war dhinacaha tegina. jacayl maaha marka, waa nacayb. marka waxaynu isku jeclaanaynaa inaynu waxa weeyaan maadaamaynu qurbaha ku badannahay oo qurbaha aynu ku soo hayaanay oo aynu qurbaha meel kasta maanta ka diganahay, inaynu isjeclaano waa muhiim. inaynu one family noqono waa muhiim. in waayo aragnimada iyo waqtiga adag iyo dabaylaha iyo barafka iyo dhaxamaha iyo cimiladan kala digaysan, mushkiladahan waxa weyn aynu ka yaabanay waa inuu cashar inoo noqdaan, waa inay wax inoo taraan. xaqiiqatan waa inay wax inoo taraan, waa inaynu isjeclaanaa, waa inaynu wax badan meesha ka bedelnaa. qolo kastoo qurbaha ku nool meel kasta dunida ka joog, meel baynu ka liidanaa, meeshaasoo isnaca. inaynu markaa isnacno maaha, inaynu markaa isjeclaano waa muhiim. sababtaan isku jeclaanna waxa weeyaan qofkan waxaad jeceshay adigu la jeclow. haddaad rabto inaad waxa weeyaan aan ku jeclaado oo walaalkii aad noqoto oo waxa weeyaan qof Soomaali oo aad noqoto kuu damqado, waxaad u damqanaysaa doonaysaa aniga inay ogolow. karaamaad rabtaa ii ogolow, sharafaad rabtaa ii ogolow, masamnimaad rabtaa ii ogolow. nacam qofka walaalka waxaad naftaada la jeceshay markaad la jeclaato adigana waxaad jeceshay qofku kula jeclaanaya. laakiin waxaa keenay maanta oo dhan adigoo qof Soomaaliya oo ninkana Soomaaliya oo qoftani Soomaali tahay oo adigu Soomaali tahay inaad waxaan dunidu ka sheekayso, waxay dunidu ka faantay inaad ku faanto, waxay dunidu akhas u noqotay inaad adigu waxa weeyaan aad u aragtay inaad ku faraxsan tahay, waxay dunidu ay necab tahay inaad adigu u aragto waxa weeyaan joyce-gaaga adduunka ugu qurux badan. ma wanaagsana, mana fiicna. xaqiiqatan ma wanaagsana, mana fiicna. waxaynu horumar ku gaadhaynaa oo aynu ku soconaynaa oo aynu ku dhaqaaqaynaa oo aynu ku dheeraynaynaa oo aynu adduunka u hiigsanaynaa inaan isjeclaano. sidaynu isku jeclaanana de anigu idiin sheegi maayo, adaa garanaya. waa adigoo wanaag ii sameeya, wanaaggaa kuu sameeyana ii qira, ragnimadeedana qira, saan ragnimadaada u qiro. qofka raggii amba qofka dumarkii waa markay qofka dumarka u qirto inay qofkani dumar tahay, ninka raggiina markuu u qira ninka nin ragaya. waa intaan in libinta la isku qiro, in la isjeclaado,
waxaad noqonaysaa markaa qof aan waxba ka xumaanayn. adduunka meel kasta tag waxba kaama xumaanayaan. adduunka intaad nooshahay adigu dhinacan ka soco, laabta ka soco, waxba kaama xumaanayaan xaqiiqatan, wallahi waxba kaama xumaanayaan. waxaan markaa anigu aan youtube-kan u furtay amba aan barnaamijkan u soo galaa inaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan aan quluubtooda la jaaro. in waxa weeyaan youtube-kayga waxyaalo badan baa ka mamnuuca inaan iska soo qaato fiidooyo kale, inaan waxa weeyaan dumar sawiradooda soo qaato qaaqaawan, inaan qof iska aflagaadeeyo, in qof kasta waxyaalo badan baa dhaca. youtube-bada qaar wad aragtaan, anigu youtube-kayga intaan waxaa soo qaato ma gelinayo, waayo anayba ahaynba. waxaa la yidhi qofkaad kabaha ka tolanayso kabihiisaa la eega xaqiiqatan. nacam qofkaad rabto inaad daawato ku xidhmato wuxuu yahay baa la dhex galaa, kadib qofkaa waxaad arkaysaa qofkani ma daahir baa mise waa waxa weyn daahir. inkastoo dee dhalinyartu maasha allah ay ka tahay un waxaan hala daawado oo hala fiirsado oo iyaga laftigooga ayna xumaan ka ahayn, haddana anigu waxaan jecelahay inaan dadka qof walba dhaqankiisu meel la soo istaagaan. dhaqankaygu waxa weeyaan inaan ka hadlo un wixii waxa weeyaan aan u arko wanaag, inaan isku dayo inaan maanta ummadda waxa weeyaan xumaha ka reebo wanaagana faro, inaan isku dayo waxa bulshadu iisoo gudbiso inaan waxa weeyaan inaan isku dayo qof kastoon hadli karayn oo dhibaataysan, qof qiso ku dhacday. maalin dhaweytoole wiil baa qiso ka qoray, weli maan dhamaystirin laakiin waan soo duubaya. wiilgaas wuxuu igu waxa ku dhacan kaa duubo, wuxuu iga cudur daartay inaan video ka duubo, magaciisina wii sheegay, qisadiina wii sheegay. qiso aad u badan weeyaan, aad u xanuun badan weeyaan. maalin dhow baan insha allah iyadana idiin soo dayn doonaa insha allah. page-ka waxa weeye waad ku xidhmi doontaan. jananka laftigiisana maasha allah waa dhaqaajiseen horta waayo intii loo baahnaa waa iska gaaraya, laakiin dadku maasha allah wixii baa batay oo de waxa weeye Soomaali haddaan nahay galaankii la darabo inuu darayna waxa weeyaan. iminka haddaad tiraahdo meel waxa weeyaan filin yaroo hindi xitaa ka daawo arkiba maysid, mid baa kuusoo qoraya filin cusub ood ku dhufanaysaayo waaba 2 mirir waa 3 mirirba filin wax ka dhacay, waa filinkii 90kii soo galayba wuxuu noqday youtube-kii cadaab ilaahay makarati. marka calaayi xaal waxaynu isku jecelnahay aynu garanno, waa inaan wax isla jeclaano, maadaamanu qurbaha ku nool nahayna aynu fikirno oo waxa weeyaan qof walowba kale adduunyada in yar baynu joogaynaa oo in badan joogi mayno, oo wadankeenan iminka dadku iska sheeganayaan oo qaar sheeganayaan oo qaar iskaga hadlayaan oo dad baa leh, dad kale waa dadkeena naga dambeeya, ma garat jiilkay naga dambeeyaa leh. jiilkay naga dambeeya marka inaan recording khaldan u reebna ma inaynu recording khaldan waxan bay daawanayaan dadkan is eryanaya qabiilkan isku eryanaya inuu daawanayna. waa inaynu waxa weeyaan nolosha tan ka guurnaa, waa inaynu qabyaaladda ka guurnaa, waa inaynu waxyaalaha khaldan ka guurnaa, waa inaynu mana sheegashada ka guurnaa, waa inaynu nacaybka iyo buqdiga iyo qocashada iyo balaayada iyo wixii dhacay oo laga tegay zamaan in la soo foqo waa in laga guuraa. waa in dhabbada toosan ee dunida lagula tartamayo. dunidii waxay soo saaraysaa baabuuro duulduulaya, dunidii mushaakil kale soo wadaa, dunidii waxay soo saaraysaa iminka waxbaad doonaysaa tusaale ahaan wadaadaadii baad kala maqantiinba dhaadhac waxbaad dhinacan kugu xidhan dhidh waxbaad diraysaa markiiba saacad kadib bay kula joogtaa, bartad ka bixinaysaa lacagta guriga gaadhi baa ugu hor imanaya, way soo raacaysaa 40 mir kadib adrees kugu warkeenaya amba nigaa oo kale amba wax kala dambanaysaa boosti xataa ma jirto. mushkil waxyaalaha soo socda adduunka waa tegey ya adduunka waa dhaqaaqay. marka waxaynu u baahannahay inaynu de haddaynu waxa weeyaan Google inoo kordhaa baa gaari wuxuu yidhi iyo garaad kuu koraa, haddaan waxa weeyaan wuxuu kuu kordhin waayadee oo waxa weeye garaadkaaga wax kuu kordhin waayadee waa mushkilad. geed waxa ma dhaantid ya garad iyo geed waxa ma dhaantid, laakiin go'a kuu kordha iyo ag dad tusaale ahaan oo kale waxaad wax ku fahmaysaan. qofku waxa la yidhi habeen kastood seexataba maalintiiba mulidkumeedka waad usii dhawaataa iyo cimriga, dhimashadiina waad usii xalay iyo caawa dhimashadii waan usii dhawahay, xalay iyo caawan uga dhawaay waxa weeyaan gabowga.
marka qofka bini'aadamka xataa waa inuu saa u fikiraa adduunka sidan u qurux badnaan mayno sidan u boodboodi mayno sidan u dhaqdhaqaaqi mayno waxa weeyaan waxay naga horeyso waxa weeyaan fa amaa man utiya kitaabahu biyamiinih wa amaa man utiya kitaabahu waraa dahri waxa weeyaan kitaabka hadda bidixdii midigta lainooga dhiibayo kii midigta laga siiyana de waa liibaanaya kii kalena wallaahi de waa isagii yaali allahu aclam marka calaayi xaal waxaynu rabnaa in hankeenu waxa weeyaan waxyaalo badan reebo isna jeclaano dad one love keliyaata isku noqono soomaaliyeed caadifada iska dayno qurunka iska dayno qabyaalada iska dayno hore aynu u socono intaasaan idigu leeyahay aadna waa idin salaamaya waa anigoo ah bilo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu